kulanti wanaagsan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida wararkii ugu dambeeyay caalamiga ah warbixinihii qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn maanta ama caawa Mareykanka oo si weyn uga hadlay qadiyada iyo xiisada kala dhaxaysa Turkiga qalalaas dhinaca miisaaniyadda oo dalka Mareykanka markaas soo food saaray dalka Hindiya ayaa wuxuu tijaabiyay mid ka mid ah hubka nuclear-ka qaada ama nuclear-ka ee ugu culus dunida isagoo markaasi ka qaylalsiiyay isla markaana arintaasi ay aad uga cadhisay dalka China oo la sheegay in uu gabi ahaan bedelkooda gaari karo gantaalka cusub dal sidoo kale ay muslimiinta ku nool ka qiimo badan tahay lo'du qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaasha qiimaha leh mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo dunida dalka Masar ayaa wuxuu soo saaray isla markaana uu ku xukumay xabsi daayin wadaadka la yiraahdo Sheikh Yusuf Al-Qaradawi ee ah asagu mufti kamid ah muftiyada caalamka Islaamka maxkamad military oo dalkaasi Masar ah ayaa waxay sheegtay in 8 qof oo kamid ah dadka maxkamadda la saaray lagu xukumay dil toogasho halka 17 qof oo maqan oo badankoodu maqan lagu xukumay xabsi daayin oo ku jiro Sheikh Yusuf Al-Qaradawi 91 sanadood jira isla markaana ku nool dalka qatar maxkamadda ayaa waxay ku eedeysay Mr. Qaradawi inuu ka dameeyay ama Sheikh Qaradawi inuu ka dameeyay waxay ugu yeedhay isku day kicin dad markaas la kiciyay iyo waxay yiraahdeen boob hantiyeed iyo sidoo kale inuu jeediyo khudbado dadka ku qaadi kara inay dilaan dad kale Sheikh Yusuf Al-Qaradawi oo ah nin ku dhashay ama u dhashay dalkaasi Masar isla markaana ku dhaqnaa sanawaadkii ugu dambeeyay dalka Qatar ayaa wuxuu madax u yahay ururka la yiraahdo International Union of Muslim Scholars ama IUMS waxa uu horay u diiday inuu qabo wax dambiya odaygan markaasi ama sheekhan markaasi ku nool dalkaasi Qatar ayaa tan iyo intii ay xukunka uu hayay madaxweynihii hore ee dalkaasi Hosni Mubarak wuxuu baxsad ugu maqnaa dalkiisa isagoo dalkiisa baxsad kaga maqnaa isagoo ku joogay dalkaasi Qatarna dhalasho ka qaatay labaad sidoo kale dadka la xukumay ayaa waxaa ku jira 26 ruux oo kamid ah ururka la mamnuucay ee ikhwaan muslimiin kaasoo walaalaha muslimiinta la yiraahdo oo markaasi iyaguna badalkoodu dalka dibadiisa u cararay kadib markii uu si xooga wadankaasi uu la wareegay ama uu ka qabsaday ama uu ku qabsaday ninka militariga madaxda uu ahaa General Abdel Fattah al-Sisi oo ka eriyay shaqada Mohamed Morsi oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay abid isla muraadiyada lagu doorto tan iyo intii la xasuusan yahay taariikhda dalkaasi Masar xilligii wixii ka sokeeyay waqtiga ambiyada wararku waxay sheegayaan in Sheikh Yusuf Al-Qaradawi oo horay isagu markaasi ay dawladda dalkaasi Masar ay liiskiisa u gelisay hay'adda la yiraahdo Interpol ee booliiska caalamiga ah ay iyagu ka saareen liiska bartooda online-ka ay ku leeyihiin kadib markii Interpol ay sheegtay inaysan haysan sabab ay markaasi cadeynayso inuu dambi galay waxaana ay dawladda dalkaasi Masar wali wada qabqabashada dadka diidan ee caaridka ku ah ee inta badan dunida taclideeda ku kala sugan iyagoo isku dayay inay bacsadaan isla markaana soo qabqabtaan oo marka ay chance u helaan maxkamad saaran halka nagala socotaana waa Hurfadhi Media dalkaasi Mareykankana xogayiisa arrimaha dibadda Rex Tillerson ayaa markii ugu horeysay si qoto dheer uga hadlay xiisada kulul ee u dhaxaysa iyaga iyo dalkaasi Turkiga Rex Tillerson oo ku sugan magaalada gobolka California ee dalkaasi Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in arinta ku saabsan ciidamada 30,000 ah ee maleeshiyaadka Kurdiyiinta u xoogan yihiin ee dawladdiisu ay doonayso in ay tababar siiso laga duway buudi jihadii isla markaana magac dil lagu sameeyay Rex Tillerson ayaa sheegay in dawladdiisu ay haba yaraataysan doonaynin in ciidankaasi geyso xuduudda Turkiga iyo dalkaasi Syria balse ay uga baahan yihiin kaliya in ciribtirka wuxuu ugu yeeray kooxda ISIS iyo baacsiga buudi argagixisada ama kooxaha wax qarbuda ee dalkaasi ka soo xoogeystay wuxuu sheegay in ciidamada la doonayo in lagu daadiyo dooxada wabiga Fred wuxuuna sheegay in ay kaliya u rabaan in la baacsado waxa uu ugu yeeray kooxda oo weeraro ka soo cusbanaysay galbeedka dalka balse aysan jirin buuri sabab ciidamadaas loo dhoobo xuduudda dalkaasi Turkiga uu la wadaago Syria wuxuu sheegay in dawladda dalkaasi Turkiga ay aaminsan yihiin in carada ay xaq u leeyihiin isla markaana uu garanayo buuri waxa carada ka keenay isagoo sheegay in arinta gabigeeda la dhan rogay isla markaana laga duway mowduuc isagoo khudbad ka jeedinayay jaamacadda Stanford University ee gobolka California ee dalkaasi Mareykanka ayuu wuxuu sheegay Rex Tillerson
in uu ku qancinayo dowladda dalkaasi Turkiga cadeyn kasta oo ay doonayaan inay helaan, isla markaana kol la weydiiyay faragelinta ciidamada Turkiga ee xooggan, isla markaana dababaadka ku qulqulaya gobolka iyo guud ahaan gobolada ku teedsan xuduudda ee dalkaasi Syria bartamihiisa ku yaala iyo kuwa koonfurta, ayuu sheegay in Turkigu ay mar walba xaq u leeyihiin inay daafacdaan danahooda, balse wuxuu sheegay in ay ka wada hadleen qadiyadaasi dhigiisa dalkaasi Mevlut Cavusoglu ay ku kulmeen magaalada Vancouver ee dalkaasi Vancouver aan ilaahdo ee dalkaasi Canada, iyagoo shir laba geesooda ku yeeshay. Tillerson ayaa sheegay in Mareykanku uu qancinta uu siinayo kale uu tahay fahanka uu ka qaatay carada Turkiga, waxaana arrintan ku soo aadaysaa iyadoo ciidamada Turkiga wali ay sii wadaan galaangalka ay ku leeyihiin gobolka, isla markaana isballaarin badan ku haya goobaha ay tahay inay tallaabo ka qaataan. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku celiyay maanta goor dambe in dowladdiisu aysan u dulqaadan doonin waxa uu ugu yeedhay laba wajiilanimada ay Mareykanku ka muujinayaan qadiyada gobolka, gaar ahaan dalkaasi Syria, wuxuuna sheegay in faragelinta ay ku hayaan iyo waliba wuxuu ugu yeedhay hubsiinta kooxda YPG iyo ciidamada dalkaasi Turkiga ay ku amrayaan buuri inay tallaabooyinka ay qaadayaan ay yihiin kuwo isdifaacid iyo ilaalinta danaha qaranka. Ruushka iyo Turkiga ayaa sidoo kale waxaa la sheegay labadooda wasiir arrimaha dibadda ee qadiyada ka wada hadleen, waxaana go'aan ku gaadheen baa leeyahay in ay si mugle u burburiyaan baa leeyahay labada kooxdaasi YPG, isla markaana ay ka caagiyaan dhulka. Dowladda dalkaasi Ruushka ayaa warar sirdoon sheegayaan inay ogolaatay in ay duqeyn xagga cirka u geysato goobo kasta oo lagu tababarayo ciidankaasi Kurdiyiinta, iyadoo aan la ogeyn halka Mareykanku arrintaasi uu talaabada ka qaadan doona. Hase yeeshee hadalka dibacsan ee kasoo yeeray xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa u muuqda mid lagu dejinayo carada Turkiga oo ah dal muhiim u ah kolka ay timaado la dagaalanka kooxaha kharbada sida ay sheegayaan. dalkaasi Pakistan waxaa ka soconaya wali mudaharaadyo xooggan oo looga soo horjeedo dowladda dalka ama xukunka haysata. dad kooxaha markaasi mucaaradka ku ah dowladda dalkaasi ee xukunka haysata ayaa haatan waxaa mideeyay banaanbaxyada waaweyn ee dalkaasi ka dhacaya, waxaana la arkayay kumanaan kun oo ruux oo isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn ee ka mid tahay magaalada Islamabad iyo magaalada Lahore ee dalkaasi Pakistan. Shalay goor dambe ayaa waxaa la sheegay in dadka ay isku dayeen in ay markaasi jiraan fagaaraha weyn ee la yiraahdo Tahrirul Al-Qadri, iyadoo la sheegay in halkaasi ururada ay khudbadaha ka jeedinayay ka mid yihiin ururka dhinaca islaamiyiinta u janjeerayda BMLN, ayagoo dadkaasi ay dalbanayeen in dowladda dalkaasi ay sacasisho, isla markaana dalka horumarkiisa ay sida muuqata ay dib u dhigeen. waxaana la sheegay in kooxaha isbeddeldoonka ah ay doonayaan in kor loo qaado amniga dalkaasi. waxyaalaha ay dalbanayeen waxaa ka mid ah in gudoomiyaha gobolka Punjab ee dalkaasi Pakistan uu iscasilo, isla markaana sidoo kale la xoojiyo bay yiraahdeen waxa loo yaqaano adeegga dadweynaha iyo in si xooggan wax loo tiro baa la yiri xuquuqda dadka shaqaalaha ah iyo ballaarinta mushaaraadka ciidamada militariga ah, iyadoo dhammaan dadku ay dalbanayaan in militariga dalkaasi Pakistan la siiyo awoodaha ugu sareeya, iyadoo ay dunida haatan ku jirto bay yiraahdeen khudbado ay jeedinayaan mucaaradku xilli diyaar garow baahsan la wado. dowladda dalkaasi ayaa ogol baa la yiri qodobada badankooda, isla markaana waxay doonaysaa baa la yiri in isbeddelka xooggan iyo miisaaniyadda la siiyo militariga la kordhiyo 25%, taasoo ka dhigan in diyaar garow xooggan ee dunidu ay ku jirto ay muuqato. dalka Hindiyana waxaa hay'adaha xuquuqul insaanka ay ka mid tahay Human Rights Watch ay ku eedeysay in ay kooxda dalkaasi xukunto ama xisbiga dalkaasi xukuma uu kicinayo, isla markaana uu abuurayo kooxo markaasi argagixiso ah oo markaasi cunsuriyiin ah oo iyagu ah baa la yiri kuwo Hindu ah oo markaasi dadka muslimiinta gumaado. Human Rights Watch oo qoraal soo saartay boqolaal bog ka kooban ayaa waxay ku eedeysay dowladda dalkaasi iyo xisbiga talada haya la yiraahdo Bharat Janata Party ee uu xukumo ra'iisul wasaare Narendra Modi in ay kicinayaan dadka Hinduuga ah ee dalka u badan, isla markaana ay ku tirtirsiinayaan inay laayaan dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay. Human Rights Watch ayaa sheegtay in tan iyo sanadkii hore 36 weerar oo naxariis darro lagu qaaday dadka muslimiinta ah, kuwaas oo loo gumaaday eedo been abuur ah oo la sheegay inay ka turjumayeen in dadkaasi ay qaleen lo,
lo-da ayay ku tilmaantay Human Rights Watch inay haatan ka qiimo badnaatay dadka muslimiinta iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool. ururka BGP ayay waxay ku tilmaantay in uu yahay mid markaasi cunsuri ah, waxaana dowladda dalkaasi Hindiya ugu baaqday inay soo qabqabato gaangiistarada iyo tuugta biireen dadka laayay bedelka ay xidhxidhayaan biireen dad lagu soo eedeeyay inay loo qaleen oo muslimiin. halkaad nagala socotaana waa wararkii ugu dambeeyay Hindiyana inteena ka bixin wararkeeda. dalka Hindiya wuxuu tijaabiyay mid ka mid ah hubka ugu culus ee hubka nuclear-ka ama gantaalaha ICBM ka loo yaqaano ee gumciyada hubka nuclear-ka xambaarsan. dowladda dalkaasi Hindiya wasaaradda difaaca ayaa waxay sheegtay in gantaalkan noociisu uu yahay Intercontinental Ballistic Missile-ka ICBM ee dhinaca korona lagaga xidho bamka nuclear-ka ah uu lagu guuleystay isla markaana uu noqday mid awood u leh baa la yidhi inuu qaado hubka nuclear-ka. gantaalkan la yiraahdo Agni V ayaa waxaa la sheegay in dowladda dalkaasi Hindiya uu yahay kii ugu xooganaa abad ee horumar ay ka gaadho, waxaana la sheegay in laga tuuray ama laga gamay jasiiradda la yiraahdo Abdul Kalam Island oo taasoo ku taala bariga dalkaasi, xeebta bari ee dalkaasi, gaar ahaan gobolka la yiraahdo Odisha. gobolka Odisha oo inta badan dowladda dalkaasi ay dhawaan ka furtay xarun dhinaca nuclear-ka ayaa la fahansan yahay in ay halkaasi saldhigga ay ka furtay uu ku wajahan yahay dalkaasi China. dowladda dalkaasi China ayaa la sheegay inay arrinta ka walwashay isla markaana ay sheegayso in muranka ka taagan gobolka Himalaya Aklam ay tahay bay yiraahdeen mid lagu xalili doono waxa ay ugu yeedhay sida ay jeceshahay dowladda dalkaasi Hindiya. dowladda Hindiya ayaa sheegtay in gantaalkan laga tuuray jasiiradda Abdul Kalam ee gobolka Odisha lagu magacaabo Agni V uu yahay bay yiraahdeen mid ka tarjumaya awoodda baaxadda leh ee militariga dalkaasi iyo gantaalaha horumarka ay ka gaadheen. dhinaca u qaabilsan tiknoolajiyada dalkaasi Hindiya oo la yiraahdo Vipin Naranga oo ah professor asaguna ka tirsan xarunta dhexe ee dalkaasi ee hubka nuclear-ka ayaa wuxuu sheegay in dowladda Hindiya ay arrintan u tahay guul isla markaana uu gantaalkan gaari karo guud ahaan bariga iyo bartamaha dalkaasi China ayna iska cadahay buu yiri in fariintu ku socoto China iyadoo oo loolanka kale ee dalkaasi Pakistan ay ku wada jiraan uu muujinayo in ay iyaguna dabcan ay ka ficil qaadanayaan. dowladda dalkaasi Hindiya ayaa la aaminsan yahay inay haysato 122 ilaa 130 madax oo hubka nuclear-ka ah, taasoo ah ka dhigaysa in 10ka dal ee ugu sareeya haysashada hubka nuclear-ka ay ku jirto, waxaana sidoo kale ay dalkaas la tartamaa ama mar walba la tartanta dowladda dalkaasi Pakistan oo iyaduna kamid ah dowladaha sida xoogan markaasi ay loola kala jiraan. gaashaanle sare Ajay Shukla ayaa isaguna wuxuu sheegay in ay aaminsan yihiin ama fahansan yihiin in gantaalkan la hagaajiyay markii ugu horeysay 2013 isla markaana lagu soo bandhigay bandhigii ciidamada markaasi ahaa maalinta xornimada dalkaasi iyada oo bishii Agoosto ee sanadkii hore sanadkan 2016 lagu soo bandhigay bandhig ay sameeyeen ciidamada dalkaasi Hindiya, balse tijaabadiisa haatan oo lagu soo beegay buuraha Himalaya ee gaar ahaan magaalada gobolka leeyahay Daklam ayaa waxa isku horfadhiyay dhawaan ciidamada China iyo ciidamada dalkaasi Hindiya, waxaana China ay dhowr jeer ku hanjabtay in ay arrinta ku xalili doonto talaabo military haddii aan Hindiya aysan ka goranin ciidamadeeda, waxaana China ay sidoo kale ay u tahay saaxiib weyn dalkaasi Pakistan oo si weyn isku hayaan awood ahaan dhinaca iyo dhul ahaanba dalkaasi Hindiya ku yaala isaguna ay dariska ka yihiin koonfur bari Asia. halkaad nagala socotaan daawadayaal waa Hurfadhi Media wararkii ugu dambeeyay dunida. dalka Mareykankana dowladda Mareykanka ayaa iyaduna qarka u saaran inuu qabsado qalalaase weyn oo xagga miisaaniyadda xildhibaanada labada aqal ama odayaasha labada aqal ee aqalka cad ay isku hayaan meel marinta miisaaniyadda xilliga dhexe ee Mareykanka. xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ayaa iyagu ah macaaridka ayaa diidan inay u codeeyaan miisaaniyadda, waxayna shuruud ka dhigeen in marka hore la damaanad qaado xuquuqda dadka muhaajiriinta iyagoo yar soo galay dalka Mareykanka ee madaxweyne Donald Trump uu rabo in dalka laga masaafriyo. 2 maalmood oo kaliya ayaa ka dhiman xilliga ay tahay in la helo miisaaniyad cusub oo lagu fangareeyo ama lagu fuliyo howlaha dowladda ee hor yaalla ilaa heer federaal. haddii kalena ma heli doonto dowladdu miisaaniyad ay ku shaqeysato, waxayna noqon doontaa dowladdu mid xaniman isla markaana fadhiida. inkastoo xisbiga jamhuuriga uu haysto aqlabiyadda codadka, haddana waxaa loo baahan yahay codad marka ay timaado ansixinta
arrimahan oo kale xildhibaanada jamhuuriga ayaa doonaya in ay kuwa dimuqraadiga kusoo xirogashadaan soo jeedin ah in hindiso cusub oo ku saabsan caymiska caruurta yaryar ee da-yarta. hase yeeshee xildhibaanada dalka Mareykanka ee kuwa dimuqraadiga gaar ahaan aqalka Senatka ama aqalka odayaasha ayaa iyagu doonaya in arrintu aysan noqonin intaas oo kaliya. Dimuqraadiyiintu waxay rabaan in la damaanad qaado difaaca dadka gaaraya 700,000 ee ruux ee sidoo sharci darrada ku jooga Mareykanka kuwaas oo iyaga oo yaryar soo galay. balse Trump ayaa sanadkii hore joojiyay qorshaha lagu magacaabo Deferred Action for Childhood Arrivals ee la soo gaabiyo DACA kaasoo u ogolaanaya in dadka iyagoo yaryar Mareykan soo gaaray ay ku sii noolaadaan ama ku sii hakadaan dalkaasi. wuxuuna aqalka cad ee Congress u qabtay Mr. Trump inay arrintan xal u helaan ilaa iyo 5 bisha Maarso ee sanadkan. Trump ayaana sheegay in gorgortan uu ka geli doono arrintan taas bedelkeedana uu rabo in miisaaniyad loo ogolaado dhismaha darbiga uu doonayo inuu ka dhiso xuduudda Mareykanka iyo Mexico. warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in agaasimaha aqalka cad uu si gaar ah ugu sheegay koox xildhibaano dimuqraadi ah in Trump uusan xog wanaagsan ka haynin kolkii uu ballan qaadayay darbiga uu ka dhisayo xuduudda ballaaran ee Mexico iyo Mareykanka wada leeyihiin. Major General John Kelly oo ah ninka dhinaca amniga kala taliya ama agaasima aan iraahdo aqalka cad ayaa laga soo xigtay inuu sheegay in isaga qudhiisa uu isku dayay inuu madaxweynaha ku qanciyo kalaabashada arrintaasi. wuxuuna sheegay in madaxweynaha Mareykanka kolkii uu damaanad qaadayay arrintan uusan ka haynin ama uusan ka haysan aragti buuxda oo ku saabsan habka uu noqon doono iyo sida uu ekaan doono darbiga iyo dhaqaalaha xooggan ee geli doono. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arrintaas isagoo ka jawaabaya sheegay inuu xog fiican ka hayay arrintaasi. waxaana muuqata in kala qaybsanaanta aqalka cad ee Mareykanka gaar ahaan ninka agaasima aqalka cad iyo madaxweynaha Mareykanka iyadoo ay soo shacabxday iyadoo hore u jireen dhaleecayna waaweyn oo ah wada shaqaynta aqalka cad iyo xubnihiisa iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. qalalaasan hadduu dhaco ayaa waxay xanibi doontaa shaqooyinka dowladda dhexe. waxaana la xasuustaa in ay mar dhacday xilligii madaxweyne Barack Obama oo ay markaasi aqlabiyadda baarlamaanka ay haysteen xubnaha jamhuuriyiinta oo iyaguna fadhiisiyay dhaqaalaha dowladda dhexe ama dowladda federaalka ah ee Mareykanka. daawadayaasha qiimaha leena biri haddii alla idmo waxaynu ku qaada dhigi doonaa xiisadan cusub markaasi Mareykanka iyo Turkiga iyo xiisadan waxa ay salka ku hayso waa maxay ururkan la isku haysto ee la yiraahdo YPG halkee ayuu ka yimid muxuu ka shaqeeyaa maxaase Turkiga iyo iyaga istusay tan iyo inta arki doonana amaanaal.